Okay, waxay noo socday cashirkeennii calculus tahay ee aynu bilownay shalay toole chapterkeennii calculus tahay waxaynu soo qaadanay lesson 1 oo ah waxa loo yaqaan limits of functions waxa loo yaqaan limits of functions waxa loo yaqaan waxaan samayn doonaa maanta waxaan dhigan doonaa waxa loo yaqaan cashirkeena labaad oo loo yaqaan differentiation loo yaqaan differentiation waxa loo yaqaan ayuu ku saabsan yahay lesson keena labaad differentiation ka waxa loo yaqaanaa yes xigsiin wax loo yaqaan xigsiin wax loo yaqaan differentiation eraygaas la xigsiin baa la yiraahdaa waynu arki doonaa erayga sida loo xigsiinayo waxa uu ka yimaadaa fansaarada marka giraariyadkooda la soo saarayo ama jejeerkooda fansaar walba wuxuu noqdaa fansaarka ka hooseeya buu noqdaa waa la xigsiinaya macnaheedu hadduu square ahaa wuxuu u daadegaa linear hadduu cubic ahaa wuxuu u daadegaa square xigsiin qaabka ku timaado xigsiinta waan arkaynaa habkaas siduu yahay laakiin cashirkeena labaad baa ku siigin xigsiinta wax loo yaqaan ku saabsan yahay halka waxaad ku haysataan differentiation at the end of the lesson students should be able to cashirkeena dhamaadkiisa ardaydu waa inay awoodaan way define gradient inay qeexi karaan gradient haddii lagu bilaabay inay qeexi karaan gradient waxaad fahantaa hababka wax loo xigsiimayo waxa ka soo baxa inuu gradient yahay be careful here taxadir halkaas explain inuu sharxi karo dy dx delta y divided by delta x tends to dy dx isbedelka waayada marka isbedelka x loo qaybiyo inuu noqonayo yes inuu noqonayo gradient ka fansaarka inuu noqonayo kororka waayada marka loo qaybiyo kororka x yada inuu noqonayo isbedelka x oo loo qaybiyo isbedelka waayada inuu noqonayo differentiation from the first principle xigsiinta habka xeerka koobaad xigsiinta habka xeerka koobaad inuu ardaygu fahmi karo inuu ardaygu inuu tusi karo faa'iidada calculus ay noo leedahay real life examples ahaan inuu inuu tusi karo way in differentiation of various simple functions and first and second derivative only inuu ardaygu samayn karo xigsiinta fansaarada fudud isaga oo raacaya first and second derivative yes xigsiinta koobaad iyo talabaad ama say wax loo yaqaano diiranaha koobaad iyo diiranaha labaad first derivative and second derivative inuu ardaygu samayn karo way halka waxaan ku haysanaa definition kaasi wuxuu inoo kala saarayaa labada kelmadood ee ah differentiation iyo derivative labada kelmadood inoo kala saari doona barfiirso waxaad haysataa the rate of change of y xaddiga isbedelka waayada with respect to x marka loo eego midka x yada halka ay fiiri xaddiga isbedelka waayada marka loo eego xaddiga isbedelka x yada marka loo eego ayaa waxa la yiraahdaa derivative xaddiga isbedelka x yada waayada oo loo qaybiyay xaddiga isbedelka waayada ayaa waxa loo yaqaano derivative ka soo baxa derivative kelmadaasi waxa la yiraahdaa diiranaha fansaarka erayga diirid sida aad u taqaano kelmadu waxay tahay fiiqid bay tahay fiirso haddaan yes waxa loo yaqaan faynkaas ama tishigaasi qalinkaas ku duubahay bal fiirso waan ka diiri karaa qaabkaas uga diirid fiiqid inagu fansaarkeena waynu diiraynaa waynu fiiqaynaa markaan fiiqno gradient ba ka soo baxaya hadda bal halka ay fiirsa hadda xaddiga isbedelka waayada marka loo qaybiyo xaddiga isbedelka x yada waxa soo baxaba waxa la diiranaha fansaarka waa gradient of a function baa la oo amase differential coefficient waxa loo yaqaan differential coefficient oo noqonaysa weheliyaha yes weheliyaha xigsiineed waxa loo yaqaan differential coefficient or amase
waxa loo yaqaano gradient janjeerka saddexdaas waa isla mid derivative gradient of a function differential coefficient waa isla mid maxaan ka reeba kaliya isbedelka waayada markii isbedelka x loo qaybiyo inuu ka soo baxayo waxa loo yaqaano diirane waa gradient kii la diiray this is the gradient of a function way macnaheedu halkay ka timaado diiradu gradient of function ama se janjeerka laynka ama se weheliyaha waxa loo yaqaano weheliyaha xigsiineed baa loo yaqaana differential coefficient-ka with respect to x marka x loo eego haddaba maxaan halka kala saarnaa hadda toole waxaynu kala fahanay derivative inuu yahay gradient-ka fasaarka inuu yahay gradient-ka fasaarka inuu yahay process of habka lagu helay gradient-kana waxa loo yaqaana differentiations xigsiin baa loo yaqaana haddaba halka waxaad garataa fansaarka haddii la xigsiimo iyada oo habab la raacayo waxa ka soo baxa waxa la yiraahdaa derivative diiranaha fansaarka oo ah gradient function labadan kelmadood midi waa maxay function marka la ina siiyo processka aynu u xigsiimayno ayaa differentiation la yiraahdaa waxa ka soo baxayna waxa la yiraahdaa waxa loo yaqaano diiranaha fansaarka ama gradient fansaarka this is the process and this is the result be careful labada kelmood say kariin processka marka lagu soo saarto derivative-ka ayaa la yiraahdaa differentiation loo yaqaana bal waxa haysataa graafka ay fiirso halka bal aadi fiirso taxadir graafka ay fiirso waxaynu naqaanay in janjeerka laynka oo gradient-ka ah lagu helo y2 oo laga jaray y1 oo loo qaybiyay x2 laga jaray x1 isbedelka waayada marka isbedelka x-yada loo qaybiyo isbedelka x-yada marka isbedelka waayada loo qaybiyo habkani waa marka points la isiyo points marka la isiyo maxaa ima kara iyada oo fansaar lagu siiyay oo gradient soo saaro fansaar marka la isiyo ee gradient-ka soo saar la yiraahdo waxaynu adeegsanaynaa waxa loo yaqaan definition of derivative bal fiirsa halka maxaan oran karaa gradient baan oran karaa gradient waa dy dx oo ila mida warba halka eeg meesha waxa kugu qoran meel waxa halka waxa kugu qoran x baa kugu qoran halkaana f of x meel waxa igu qoran saasay noo qoran fiirso f waxa inoo qoran x iyo f of x waxa inoo qoran x plus h iyo f of x plus h ba inoo qoran this is x1 y1 this is x2 yes y2 sidaas la mida bal hadda ii fiirseeg limitka bal hadda ii fiirseeg limitka waxa qaata bal ii fiirseeg y2 waa tan f of x f of limitka f of x plus h oo laga jaray f of x kaliya f of x oo loo qaybiyay bal ii fiirso f of x x2 baa ka wada x2 sorry ha f x2 maxay ahayd x plus h oo laga jaray x as h approaches to 0 ayaa waxay ila mid tahay limit definition of limit by fiirso waa maxay waa y2 laga jaray y1 oo loo qaybiyay x2 laga jaray x1 oo la saaray xadkii fasaarka maxaa xadka loo saaray hajtu waxay kuugu taagan tahay isbedelka waayada marka loo eego isbedelkii x sorry inta ku kordhaysa qiimahayga x-ta kororka ku kordhaya qiimahayga x-ta ee isbedelka x2 iyo y2 labadanaan isaaray maxaa ii noqonaysaa lim f of x minus f of x divided by h as h approaches to 0 maxaa limitka loo saaray y2 oo laga jaray y1 oo loo qaybiyay yes h as h approaches 0 hadduu isbedelkii labada x1 iyo y1 ku ay isdheeraayeen hadduu 0 ku sii dhawaado this is the definition of formula qaacidada aan adeegsan doono marka la ina siiyo fansa and this was point specific maxaa ima karaa dy dx inay ila mid tahay
f prime of x inay ila mid tahay balanta halkaa fiirseeg y prime dhammaantood inay isbedelka waayada marka loo qaybiyo isbedelka xida f prime or y prime inay gradient inoo yihiin dhammaantood hadda maxaa ka rabaa qaacidada fiirseeg waxay ku sheegaysaa fansaarkaaga meesha x oo lagu bedelay x plus h oo laga jaray fansaarkaaga oo sidiisiya oo loo qaybiyay h maadaama aanad haysan points fiirseeg fansaarkaaga oo lagu bedelay meesha x meel kasta oo x taalo x plus h oo laga jaray fansaarkaaga oo sidiisiya oo loo qaybiyay h bal fiirseeg definition of TFTP processka la raacayo ayaa waxa la yiraahdaa differentiation la yiraahdaa fiirseeg maxaad yeeli kartaa halkan fiirseeg maxaan yeeli karaa bal shaygan hadaba ii fiirso shaygan ii fiirsato eeg tusaalahan ii fiirso examples from the graph focus y2 laga jaray y1 equation kan hadii qorayo ii fiirso maxaad haysaa ii fiirseeg we have here inay isla mid yihiin dy dx f prime of x iyo y prime of x maxaad haysataa halkaas example ka find the gradient of the following by using first differential rules adoo adeegsanaya xeerkii koobaad ee xigsiinta soo saar kuwan baa la yiri maxaad haysataa haye kow ii fiirso f of x waxaad haysataa ay ka say x square plus 3 at x ay ila mid tahay what I can say 3 maxaa la iga rabaa gradient maxaan ku aqaan gradient y2 laga jaray y1 oo loo qaybiyay x2 laga jaray x1 we don't have a points at all please here equation baaraysana definition ka derivative ka adeegso maxaan ku dhahay deertoore hadda bal halka ay firsaag maxaan oran karaa f prime of x waxay ila mid tahay fiir xakan f limit buu ahaa qaacidada firsaag lim f of x plus h oo laga jaray f of x oo loo qaybiyay h as h approaches 0 fansaarkaaga oo lagu bedeshay x plus h meesha x taalo oo laga jaray isagoo sidiisiya maxaan oran karaa lim way fansaarkaygii muxuu yahay x square plus 3 bal fiirsa hada x plus h whole square plus 3 maxaan sameeyay fiirso meeshii x ta ee fansaarkayga waxaan ku bedeshay x plus h anoo qaacidada waafajinay waan dhigtay saddexdii oo laga jaray bracket fansaarkaaga oo sidiisiya f of x verse x square plus 3 oo loo qaybiyay h as h approaches to 0 taxadir halkaas fansaarkaaga meesha ay x taalo oo lagu bedeshay x plus h oo laga jaray fansaarkaaga oo sidiisiya be careful here maxaan oran karaa halkan fiirseeg lim sidee la isku dhiftaa inta laba jeer isku dhif qaabkee la isku dhiftaa ka hore oo la isku weeray x square labadooda oo la isku dhiftay oo laba lagu dhiftay 2xh plus ka gadaalo oo la isku weeray h square waa inta marka laba jeer isku dhifto way lagu daray saddex oo laga jaray bracket x square plus 3 divided by h be careful x plus h oo lagu dhiftay x plus h inay intertype firseg qaabkaas la isku dhiftaa way sida isku dhifashadii caadiga processka caadiga aad mari kartaa laakiin simple maxaa la x plus h square ka hore oo la isku weeray x square labadooda oo la isku dhiftay oo labana lagu dhiftay 2xh plus h square baad oran kartaa way waxaad haysataa halkan iyo fiirseeg minuska kuwa ku furfur as h approaches to 0 maxaan oran karaa lim yes x square plus 2xh plus h square plus 3 minus x square minus 3 divided by h as h approaches to 0 maadaama minusku calaamadaha ka bedelayo bracketka x square iyo x square bas saaraya 3 iyo 3 baa isla saaray maxaad haystaa ii sheeg lim 2xh plus h square divided by h as h approaches to 0 si h taa hoose aan u tirtiro
kuwa sare baan ka isreynaya hal h ka isreynaya maxay ii tahay fiirso lim way as h approaches 0 h 2x plus h divided by h h iyo h baan isla saaraya ii fiirso maxaad haysataa ii fiirseeg lim 2x plus h as h approaches 0 adoo qiimaha limitka meesha h taala 0 ku bedelanaya soo saar limitkayga muxuu yahay ay ka say ee fiirso 2x plus 0 this is 2x meesha h taala 0 ka dhigtay 2x ayaa haystaa value of x maxay ila mid ahayd fiirso labo 2 times 3 this is 6 gradient of function fiirso gradient of function anoo adeegsanaya differential of derivative ka fiirsay ma ka taxadiraysaa qiimaha x meel kasta oo x taalo x plus h ku bedel oo laga jaray fasaarka oo tabtiisiya oo loo qaybiyo h maxaan yeeli karaa halkan bari fiirsay maxaad haysataa another example tusaalaha kala bari fiirso maxaad haysataa fiirsay look this example f of x waxay ila mid tahay x square plus 5x at x ay ila mid tahay haye maxaa raysay fiirso labo waa kan fasaarkaygi meel walba oo x taala x plus h ku bedel maxay ii tahay lim f prime of x maxay ila mid tahay waayahay x batally x plus h la square plus 5 horgalaha waa dhigtay x plus h kala dhigtay fiirso laga jaray bracket x square plus 5x bari fiirsay meeshii x taalay x plus h baa ku bedeshay meeshii x taalay x plus h waa y2 laga jaray y1 oo sidiisiya oo loo qaybiyay ii fiirsay oo loo qaybiyay h yes limitkii baa ka iloobay sorry limitkii baa ka iloobay lim as h approaches to 0 ayay f prime of x limited maxaan yeeli karaa bari fiirsay ay kaasay si isku dhifasday naqaanay lim x square kale x square plus isku dhifaladeedo labada ku dhifo 2xh plus h square bracket ka sida u xir plus 5x plus 5h ee fiirsay 5x plus 5h minus ee fiirso minus kani calaamadaha gudaha ku jiro bedelaya minus x square minus 5x divided by what h baraysa ee fiirso as h approaches to 0 maxaan yeeri karaa ee fiirsay if we remove the bracket hada bracket ka saar qaybta hore lim as h approaches to 0 waxaad haysataa x square plus 2xh plus h square plus 5x plus 5h minus x square minus 5x divided by what h baan haystaa ifiso divided by h maxaan isla saari karaa x square oo plus x square oo minus wixii isla bixi kara saarsa fiirso 5x iyo 5x baan isla saaray ifiso maxaa ii dhiman this is lim as h approaches to 0 maxaa ii haray 2x plus h 2xh plus h square plus 5h divided by h baan isla fiirso koreeyahayga waxaad ka wada isreysaa h ka isree si ay hoosta ula baxdo maxaan yeeri karaa lim as h approaches 0 h markaan ka saaro 2x plus h plus 5 by 8 fiirso divided by what h baan isla fiirso maxaan simple isla saari karaa h iyo h baan isla saari karaa fiirso hooseeyaha qaabsanayso waray kaasay maxaan yeeri karaa soo qaado fasalkayga maxay haday ii fiirsay lim baraka ii fiirsay 2x plus h barista 2x plus h plus 5 as h approaches to 0 limit kayga saar
qiimaha hta maxay ku bedel maxay ku sidawaanisay 0 maxaan dhihi karaa ifirse 2x plus 0 plus 5 what I can say 2x plus 5 kani waa 0 maxaan ku bedelaa qiimaha x-tayda the given value qiimihii la isii ifirso haye maxaan yeeri karaa 2 lagu dhiftay 3 plus 5 laba yahay sorry labo this is 4 plus 5 this is 9 gradient function maxaynu ku haysanaa halka maxaynu soo aragnay in isbedelka waayada marka loo qaybiyo isbedelka x2 uu gradient yahay in gradient-ka la yiraahdo derivative oo loo aqoon yahay diiranaha fansaarka sida loo diirayo we will see on arki doonaa diiranaha qaabka ku imanayo borosaska lagu soo saartay differential la first derivative of waxaan qaadanay in first principle baan qaadanay xeerka koobaad oo noqonaysa qiimaha fansaarkaaga meel kasto extra la inaad x plus h ku bedesho oo ka jarto fansaarkaaga oo tabtiisiya oo loo qaybiyo h inaad soo saar karto first principle baa la yiraahdaa rules of differentiation baan adeegsan doonaa oo loo yaqaano xeerarka xigsiinta hadii ilaahay nagarsiyo ashirkeena qaybta labaad xiisada kale inoo socon doontaa exercise kaas aad ka shaqaynaysaa f of x waxa kulamtay x square plus minus 2 at x ay kulamtay 1 2x square minus x plus 1 at x kulamtay 0 x square plus 3x plus 6 at x kulamtay 2 5x square plus 2x minus 5 at x kulamtay 3 adoo adeegsanaya qaacidada definition of derivative because of points ma haysatid oo y2 laga jaray y1 oo loo qaybiyo x2 laga jaray x2 equation balista definition of derivative ba haboon aad baad u mahadsantiin halkaas qaybta kuwaad way noo soo socon doonaa lesson 2 ashirkeena lesson 2 waa sii socon doonaa hadii ilaahay na gaarsiiyo